degdeg ciidankii magaalada Laascaanood ka soo galbin lahaa Genaraal Jimcaale Jaamac Takar ayaa dhaqdhaqaaqyo xooggan waxa ay ka bilaabeen gudaha magaalada Garowe iyadoo la filayo in saacadaha soo aadan ay tallaabo culus qaadaan kadib markii fashil iyo foolxumo ay ku soo dhammaadeen wadahadaladii u dhexeeyey markaasi Jimcaale Jaamac Takar iyo madaxweynaha dowladgoboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Deli kadib markii Jimcaale Jaamac Takar uu markaasi diiday qodobo markaasi uu u soo bandhigay Saciid Cabdullaahi Deni guddigii ka yimid Garowe ee ku sugnaa magaalada Laascaanood ayaa dib waxay ugu laabteen magaalada Garowe waxa ayna si cad ugu sheegeen Saciid Cabdullaahi Deni in Jimcaale Jaamac Takar uu diiday markaasi qodobadii uu u soo bandhigay Saciid Cabdullaahi Deni xaaladda magaalada Garowe oo markaasi gashay jawi ka duwan jawiyadii hore waxaan kula wadaagi doonaa markaasi qodobada uu markaasi soo bandhigay Saciid Cabdullaahi Deni uuna iska diiday ninka lagu magacaabo Jimcaale Jaamac Takar Jimcaale haatan waxa uu soo ruqaansanayaa gudaha magaalada Garowe isagoo guddigii ku wargeliyey in aysan jirin cid ka hor istaagi kartaa in uu galo isaga iyo ciidankiisa gudaha magaalada Garowe ee caasimadda dowladgoboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni xaaladda ayaa ku xun caawa waxa uuna markaasi dareemayaa in culays xooggan uu markaasi kala kulmi doono ninka lagu magacaabo Jimcaale Jaamac Takar haddii isaga iyo ciidankiisu ay soo galaan gudaha magaalada Garowe xogtii ugu dambeysay ciidanka Laascaanood ka soo galbin lahaa Jimcaale Jaamac Takar ayaan kula wadaagi doonaa iyagoo haatan markaasi la filayo in ay bilaabaan dhaqdhaqaaqyadii markaasi ugu horreeyey oo ay ku soo galbinayaan Jimcaale Jaamac Takar wadahadaladii kadib fashil ay ku soo dhammaadeen xogtaas iyo sidoo kale xog ka dahson ayaan bannaanka ku keeni doonaa daawade balse intaan u gudagelin tabinteenna waxaa ka codsanaya inaad YouTube-keena subscribe saarto haddii aad nagu cusub tahay haddii aad horey noola joogtayna muuqaalka like saar sina share gareey si muuqaalka u gaaro saaxiibo wanaagsan sida adiga oo kale mahsanid daawade haddii aynu ku bilowna tabinteenna muuqaalka waxaa markaasi dhaqdhaqaaqyo culus wada ciidankii ka soo galbin lahaa magaalada Laascaanood ee xarunta waqooyi bari ee Soomaaliya ninka lagu magacaabo Jimcaale Jaamac Takar kuwaasi oo markaasi dhaqdhaqaaqyo kuwii ugu dambeeyey ka wada gudaha magaalada Garowe ee caasimadda dowladgoboleedka Puntland dhaqdhaqaaqyadan ay bilaabeen ciidanka ayaa yimid kadib markii ay fashil ku soo dhammaadeen wadahadaladii u dhexeeyey Saciid Cabdullaahi Deni hogaamiyaha Puntland iyo taliyaha qaybta 54aad ee ciidanka xoogga dalka Jimcaale Jaamac Samatar wadahadalada Saciid Cabdullaahi Deni uu markaasi kaga codsaday Jimcaale Jaamac Takar ee maalmihii ugu dambeeyey ay dhexdhexaad ka ahaayeen guddi ka kooban 13 xubnood oo ahaa in Jimcaale uu ka tanaasulo xilka dowladda dhexe ay u magacawday kaasi oo ah markaasi taliyaha qaybta 54aad ee ciidanka xoogga dalka Jimcaale oo guddigii maalmihii ugu dambeeyey isku horfadhiyeen magaalada Laascaanood ayaa guud ahaanba waxa uu soo afjaray in uu markaasi ka tanaasulo xilka ay u magacawday dowladda dhexe ee Soomaaliya Saciid Cabdullaahi Deni codsigiisana sidaasi ayuu ku burburay riyadiina waa uu ka toosay kadib markii guddigii ka koobnaa 13 ruux ay ku hoyanayaan magaalada Garowe ee caasimadda Puntland Saciid Deni iyo guddigii ayaa waxa uu haatan shir ugu socdaa gudaha magaalada waxa ayna markaasi ka shirayaan sida ugu macquulsan ee Jimcaale Jaamac Takar iyo ciidankiisu ay markaasi ku soo gaari lahaayeen magaalada Garowe iyadoo haatan Saciid Deni uu guddiga u soo bandhigayo qorshe halis ah oo markaasi looga hortagayo Jimcaale Jaamac Takar
xaaladdu ma sahlana, marba marka kasii dambaysana waxaa isu soo taraya dhaqdhaqaaqyo ciidan oo markaasi laga dareemayo gudaha magaalada Garowe. Jimcaale Jaamac Takar ayaa soo bandhigay ciidan aad u fara badan iyo sidoo kale gaadiid iyo markani saanad military oo markaasi kula soo wajahan yahay gudaha magaalada. Saciid Cabdullaahi Danina waxa uu markaasi qorsheenayaa sidii ugu hortagi lahaa Jimcaale Jaamac Takar iyo ciidankiisa. Dani waxa uu leeyahay ninkan haddii uu diiday inuu ka tanaasulo xilka taliyaha qaybta 54aad ee ciidanka xoogga dalka, waa in uu markaasi isagoo iyo ciidankiisu aysan cagta soo saarin gudaha magaalada Garowe. Waxa uu leeyahay waa in markaasi ay degaan xerada ku taala duleedka magaalada Garowe, taasi oo markaasi la yiraahdo Legle, oo haatan ay ku sugan yihiin ciidanka danab. Waxa uu leeyahay ciidanka danab iyo ciidanka uu hogaaminayo taliye Jimcaale Jaamac Takar xeradaasi ha u guuraan, iyo sidoo kale waxaan ogolahay kala beer in ay degaan. Waxa uu leeyahay marnaba suurtagal ma ahan in Jimcaale iyo ciidankiisu ay fariisimo waaweyn ka samaystaan gudaha magaalada Garowe, sidoo kalena markaasi ay awood ku yeeshaan caasimadda markaasi looga arrimiyo maamulka Puntland ee Soomaaliya. Saciidani go'aan ayuu haatan ka gaaray Jimcaale iyo Jaamac Takar, isaga iyo markaasi ciidankiisa iyo sidoo kale ciidanka danab oo haatan markaasi xarumo ku leh markaasi duleedka magaalada Garowe. Qorshahaasi oo ah markaasi in guud ahaanba Jimcaale uusan iyo ciidankiisu aysan suurtagal ahayn marnaba in ay xarun ama fariisimo ay ka samaystaan gudaha magaalada Garowe. Jimcaale Jaamac Takar waxa uu isagoona ku dhawaaqay go'aan halis ku ah markaasi nabadda ka taagan gudaha magaalada Garowe. Waxaana haatan laga cabsi qabaa in saacadaha soo aadan uu markani dagaal aad u culus u ka qarxo gudaha magaalada Garowe. Dagaalkaasna markaasi waxaa sabab u noqonaya Jimcaale iyo sidoo kale Saciidani oo markaasi is-afgaran waa heshiiskooda uu ku soo dhamaaday. Guddigii maalmihii ugu dambeeyay ku sugnaa magaalada Laascaanood dib waxay ugu laabteen magaalada Garowe, waxayna markaasi u kala dabqaadayaan sida laba madaxweyne oo markaasi uu ka dhexeeyo khilaaf aad u culus. Hogaamiyaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani iyo taliyaha qaybta 54aad ee dowladdu ay u soo magacaawday deegaanada maamulkaasi Puntland. Jimcaale Jaamac Takar horey waxa uu ahaa markaasi taliyaha markaasi danab ee ciidanka markaasi Puntland, haatanna dowladdu waxay u magacaawday taliyaha qaybta 54aad ee ciidanka xoogga dalka. Xasan Sheekh Maxamuud oo markaasi ku dhawaaqay in dowladda dhexe ee Soomaaliya ay ciidankii ugu badnaa ka qoran doonto deegaanada maamulka Puntland ee Soomaaliya. Waxa uuna leeyahay mishaarkooda, xuquuqdooda, wax walba oo ku bixi lahaa waxaa markaasi dusha saaranaysa dowladda dhexe ee Soomaaliya. Fariin culusna waxa uu diray Saciid Cabdullaahi Dani. Xasan Sheekh haatan waxa uu doonayaa markaasi in awood ciidan uu markaasi Puntland kula wareego. Koonfur galbeed waa uu burburiyey, waxa uuna adeegsaday awood ciidan. Maamulka Puntland wadahadal ayuu xaaladda ku soo dhameeyey. Hirshabelle iyaduna haatan jawi nabdoon iyo wadahadallo ayay wax u socdaan haddii ay sidaas wax kusii socdaan. Marka Xasan Sheekh waxa uu doonayaa in maamulada kale ah Puntland, Koonfur galbeed iyo Jubbaland uu ka abuuro qalalaase aad u xoogan. Waxa uu rabaa markaasi in khilaaf siyaasadeed uu markaasi kaga faa'iideysanayo in uu halkaasi ciidamo xoog leh oo ka tirsan kuwa dowladda in uu saddexda maamulba uu kula wareego, sidoo kalena awood buuxda uu ku yeesho maamuladani. Maamulada waa ay ka soo horjeedaan marka qorshaha markaasi uu doonayo madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday ee Xasan Sheekh Maxamuud. Iyaguna waa ay diidan yihiin, ciidan ayay soo bandhigeen oo ay leeyihiin waxa ay difaacayaan deegaanadooda, dadkooda iyo cid markaasi kusoo duushay in ay ka difaacaan deegaanadooda. Xasan Sheekh saddexda maamul qorsho halis ah ayuu u duugayaa oo uu doonayo in saddexda mas'uul oo markaasi meesha kaga saaro Saciidani iyo sidoo kale Axmed Madoobe. Horeyna waxa uu qadka kaga saaray ninka lagu magacaabo Cabdicasiis Maxamed Xasan.